xildhibaan maxamed axmed dhakool oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada oo muddo 39 maalmood ku xidhnaa xarunta CID-da ee magaalada Hargeysa ayaa markii la soo daayay waxa uu ka hadlay siyaabihii loo maray xadhigiisa kadib markuu maalintii shalay toole uu dib u helay xorriyadiisa. xildhibaanka ayaa waxa uu ka hadlay qaabka uu helay xorriyadiisa iyo isagoo sidoo kale u mahadceliyay shacabweynaha reer Soomaaliland sida uga qayb qaateen inuu xildhibaanku dib u helo xorriyadiisa. inaan rabo laba kalmadood oo kooban inuu ku aan shirkeyga jiraad maanta ku yar tilmaamo midda koowaad waxa weeyaan mahadcelin waxaan mahadcelinayaa xarigeygii cid allaale ciddii Somaliland uu u dhibay ama si sharci ama si sharafeed oo aan ugu horeysiiyo golayaasha qaranka shirgudoonadooda waliba gudoomiyaha guurtida oo arintaa isagu ka hadhi waayay habeen iyo maalinba ka hadhi waayay isagoo u arkayay arrin sharci ahaan aan habboonayn sharaf ahaan aan habboonayn waxaan ku xijinayaa garsoorka maxkamadda oo qaran ahaanna qiimo weyn arrintaa ku yeeshay qof ahaanna cadaaladdeydii iyo damiirkaygu sidii uu dareemayay maray waxaan ku xijinayaa bahda saxaafadda oo maanta indhaha keliya ee Somaliland ay wax ku aragto ama Soomaaliba ay wax ku aragto oo wixii saxanna taageera wixii qaladaad ku jirana mujtamac u bayaariya أنا أقول لها سحافة حرير ما نهين هذا وحي قد لما إن شاء الله وحن ترقرينيا بعد سحافة إن عن آذيات وقنا من نقول تاجره وحكون أمهد علينا يا وآذيات نمهد علينا يا أوركا قرينا السومالي لان وأرنتها عن هبيني ما نتون كفريسن شرعي هان إيو ضدني ما هامبا دمير كود آذيات ضمغي وحكون أمهد علينا يا أوركا حق الرسانكا ويقول بتشيلك ويقول إيمانيي وحالتayda caafimaad iyo tayda moral labadaba eegay iyagana aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan kula mahadcelinayaa odayaasha madasha walba ragii hadlay xasan guure oo taariikh weyn Soomaaliland ku leh hadalkiisana uu yahay hadal qalbigayga aad iyo aad u daweeyay waxaan kula mahadcelinayaa oo iyadana aan la hilmaami karin doorkii weynaa oo ummadda reer Soomaaliland meel kastaba ay joogto ay arrinta ka qaadatay deegaan qof hadday salaadiin tahay hadday mutacalimiin tahay hadday wax garan tahay aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan kaloo mahadcelinayaa ururka weyn ee aan u maleynayo hadda Soomaaliland mustaqbalka aan lahayn ee ah bahweynta ururka wadani siyaasiyiintiisa gudoomiyihiisa ningarboodkiisa oo aan arkayo dadkii aan ka tirsanaa wuxuu jeclaa in aan ahay oday baadi oo beerka lagu dhufto isaguna oo aan ka tirsanin waliba wuxuu damiirkiisa iyo dadnimadiisa u muujiyay inaanay arrinta hab kale la dhaqmay oo hab gobonimada Soomaaliyeed iyo dawladnimada midna aan ku wanaagsaneyn iyadana saas aan ugu mahadcelinayaa waxaan leeyahay wixii farta meel kale u taagado ilaahay cafis weydiisto oo anigu ka mid ahay ilaahay baa cafis ka weydiisanaya arrinta taana intaasaan kaga waxaynayaa mar labaad waxaan aad iyo aad mahadcelinayaa odayaasha qabaa'ilka iswada xilqaamayay waliba odayaasha meesha baragol oo arrinta iyadu ka hari waayeen markii arrimaha sharcigu dee muran galay iyagu si gaar ah isu xilqaamay aad iyo aad baan mahadcelinayaa guud ahaan cid allaale ciddii Somaliland ciidda Soomaaliyeed ee xadhigaygaas damiirkooda iyo dadnimadooda u dhaawacay aad baan ugu mahadcelinayaa Faisal Yusuf Kacaan wararka telefishinka caalamiga Royal Hargeysa.